meelaha kala duwan iyo waaya aragnimada nolosha waxa aan ka bartay ee aan jeclaan lahaa maanta halkiina anigoo jooga haddii la ii sheegi lahaa inaan maqlo inaan idinla wadaago laga yaabo qaarkiin inaad meelaha ka maqmaqasheen ama arkaysaan ee bulshadan haystaa dadka aqoon-yahanka ah ee la rabo inay wax ka xaliyaan 20 sano 15 sano kadib inaad ka mid tahay oo mas'uuliyadaasi ku saaran tahayna inaad dareensanaato waa mid muhiim ah suuqan xiran iyo ummadan wada xiimaysa iyo xafiisyadan wada shidan halkee laga gali karaa iska jiifo oo guriga ka soo baxaya oo haddana iska soconaya wax iska cunaya uno iska rootiin waxba la dhigtaa oo jaamacad baa la tagaa meeshana la tagaa iskaga jira xirfadda markaa wada la dhaqanka waxa kamid ah communication kaaga inaad wanaajiso luqadda ku hadlaysa waa muhiim iyo sidaad u hadlaysaa marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo dhalinyaradii suukan keentay ee soo abaabushay inagoo laga yaabo dhammaanteen inay hadda suukan horeysay inaynu halkan isugu nimaadno ugu horeeyo macallin warsame axmed xamse hanad iyo tiimunka kale ee runtii idinla soo wadaagay xogtan ee laga yaabo inaad ka soo aragteen 14 sano ka hor 14 sano ka hor baa xaaladda in badan oo maanta idinka idin ka mid ah ku jirteen ee dugsiga sare imtixaanka shahaadiga ah aan ka dhamaystay iskuulka gacan libaax ee halkan agteena ku yaala waan dareemi karaa markaa marxaladdii anigu xilligaan wax ku bartay iyo midda ku soo barateen ama wax ku soo qaadateen in badan oo waayaha iyo waqtigaas waa isku mid waa laga yaabaa inay kala duwanaansho waxooga jiro laakiin 14 sano ka hor xaaladdu siday ahayd iyo duruufihii jiray iyo waayaha waddanka ka jiray wax badan iskamay bedelin waan dareemi karaa markaa marxaladda aad ka soo baxdeen su'aalaha badan ee maskaxdiina ku jira iyo weydiimaha aad weydiinaysaan iyo warwarka laga yaabo in badan oo idin ka mid inaad ka qabtaan jidka idinka horeeya oo aydan garanayn waxaad kala kulmi doontaan cutubka cusub ee noloshiina taas markaa igu dhalisay inaan idinla wadaago 14 sano halka aan soo maray meelaha kala duwan iyo waaya aragnimada nolosha waxa aan ka bartay ee aan jeclaan lahaa maanta halkiina anigoo jooga haddii la ii sheegi lahaa inaan maqlo inaan idinla wadaago hal erey ama hal talana ha noqotee wixii aan idinku kordhin karo aan idinku kordhiyo bay ujeedada kulankani daaran tahay intaan markaa aynaan eegin maxaa idinla gudboon iyo halkee loo socdaa isku isbaa taagan tahay cutub noloshaada ka mid ah baad soo dhaaftay marka halkaa aad taagan tahay horta inaad garato ayaa ka muhiimsan halkaad u dhaqaaqayso intaanad qeexin marka horta waa inaad ogsoonaataan kow halka aad hadda maanta taagan tihiin inay tahay fursad dhalinyaradii idinla midka ahayd ama generationkiina ahaa in yaroo ka mid ay heshay inaad hesheen ma u malaynaysaan boqolkii qof ee Somaliland gaadhay da'da secondary-ga in 20 kaliya ay dhigtaan ay ka baxeen 20 inaad ka mid tihiin horta inaad ogaataan oo aan ahayn hawl yar in 80 ka mid ah dadkii da'da secondary-ga gaadhay aanay dhiganin school secondary iska daayna ka qalin jabiyaan marka horta inaad ogaato inaad ka mid tahay 20 qof waa kow waxa ka caawinaysaa marka inaad fahamtid halka aad u socotid laba markaad ogaatid 20 inaad ka mid tahay boqolkiiba ama tirada yar ee kooban ee dugsiga sare dhamaysatay marka ugu horeysa waa inaad u mahadnaqdo cid kasta oo qayb ka ahayd halka aad soo gaadhay ugu horeyn ilaahay markaad u mahadnaqdo marka ku xigta cid kasta oo ku garab taagnayd ama kugula dadaashay halka maanta aad joogto oo waalid iyo walaal iyo wehel kala laha waa inaad ku tiraahdo waad mahadsantiin waxa ku xigaya marka waxay noqonaysaa in aad adigu naftaada proud u noqotid aad ku faraxsanaatid xaaladdan aad taagan tahay dad badan iyaas nasiib uma yeelan adu nasiib baad u yeelatay inaad taa lafteeda ku faraxdid oo inaad isku arkin qof iska caadiya ama wax iska caadiyo cid waliba haysatay inaad haysatid waa inaad ogaatid inaad haysatid wax in badan oo adiga kula daa ama kula generation aan haysan taa marka waxa ka dhalanaya ma oo kaliya inaad ku faraxsanaatid laakiin mas'uuliyad inay ka dhalanayso waa inaad ogaatid 80 maanta kula midka ahaa ee aan dugsi sare dhigan mas'uuliyad aan saarnayn in adiga ku saaranta in 10 sano 15 sano kadib 20 sano kadib
mushkiladaha waaweyn ee laga yaabo qaarkiin in meelaha ka maqmaqasheen ama arkaysaan ee bulshadan haystaa dadka aqoon-yahanka ah ee la rabo inay wax ka xaliyaan 20 sano 15 sano kadib inaad ka mid tahay oo mas'uuliyadaasi ku saaran tahayna inaad dareensanaato waa mid muhiim ah oonad isu arkinuun sidaadii caadiga ahayd qodobka u dambeeya ee aad ogaanaysaa waxa weeye maanta halka aad taagan tahay waxa kaa xidhmay chapter la yidhaahdo ciyaal iskuulnimo waa ciyaal iskuul iyo waa iskuuley maanta waad ka baxday chapterkaasi uu xidhmay halkaasuu ku xidhmay dibna uma soo noqonayo wixii aad dhigatay way yaalaan waxaad ka bedeli karta ma leh laakiin wuu xidhmay chapterkaasi dhaqan gaar u lahaa dhaqanku lahaa waxaa ka mid ahaa in lagu daba socdo inay waalidka ay ku daba socdaan ehelka ku daba socdo iskuulkii ma tagtay generation mas'uul laga ahaa bay ahayd xilligaasi waaye adiga mas'uul laga ahaa oo lagu daba soconayay oo dareyskaaga iyo sidaad u xiiratay iyo sidaad u labisan tahay iyo sidaad u eg tahay macallinka iyo waalidka iyo ciddii markaa mas'uulka ka ahi ay eegaysay laakiin chapterkaasi hadda ma jiro 20kii ayaad cagacagaynaysaan qiyaas ahaan da'da hadda ku jirtaan taasi markaa waxay keenaysaa inaad ogaataan chapterkaasi wax badan oo wanaagsanna waa idin kala xidhmay wax badan oo mas'uuliyada ah oo aan idin saarnayna oo idin kala xidhmay hadda wixii way isbedeleen haddaba chapterka aynu sheegaynaa cusub ee noloshaada hadda ah iyo waayaha hadda aad galaysid ee bilowga ah sideed u waajahaysaa waxaan idhi waa inaad ogaatay inta aynu sheegaynoo dhan in koow mas'uuliyadu ku saaran tahay maanta laga bilaabo cid ku daba taagan ama cid culays kugu saaraysa inaad isdabbarto oo nolosha meel ka gashid wayba yar tahayba ama lagama filanayo in lagu daba socdo adiguna inaad cid ka filatid in lagu bushkareeyo oo lagu riixo oo wax lagaala hadlo oo lagu yiraahdo waxaan dhigay iyo waxa sameeyay iyo saa isu hagaaji that's done u dhamaaday chapterkaas marka mas'uuliyadda qaadisteedu waxay ka bilaabmaysaa intaanad cid kale mas'uul ka noqon horta inaad adigu dareentid inaad noqotid qof sidiisa u taagan qof independent waxaan ka wadnaa dhaqaalaha waa laga bixinay iskuulka intiina badan waa laga yaabaa qaarkiin in si kale lacag u samaynayseen ama si u shaqayn jirteen waa laga yaabaa laakiin intiina badan dhaqaale ahaan qof waliba faamiligiisa iyo ehelkiisa ku tiirsanaa soo ma waa inaad isweydiiso dhowr iyo 10 sano mas'uul lagaa soo ahaa this time adiga inaad gaadhid heer cid kale yes qoyskaaga ehelkaaga waalidka iyo guud ahaan qaranka hadhow wada faacaysa laakiin inaad adigu naftaada bal horta sidee isku dabari kartaa basicskaaga aad u baahan tahay inaad samayn kartid waa inaad mas'uuliyaddaas aad ka fikirtid oo aad ka shaqaysid sidaad u mari lahayd ama jaamacad gal ama ha gelin waa qodob kale laakiin waxaan kugula talinayaa oon jeclaan lahaa maalintan daadiina ahaa in la ii sheegana inaad yeelatid xirfad aad bay muhiim u tahay xirfaddu waxay doonto ha ahaato laakiin inaad xirfad shakhsiya yeelatid mid iyo laba iyo saddex haddaad yeelan kartood ka badin karto waa fine laakiin xirfad inaad yeelatid bal u fiirso qof walo idinka mid ah ama intaad garanaysa ama inta aad shaar tihiin ama si uun asxaab tihiin ama qoys tihiin qofka qoyskaas dabbara noloshiisa ama maamula ama uu ku tiirsan yahay inta badan waa qof xirfad leh adiga laftaada waalidka haddaad eegto waxa laga yaabaa xirfad buu leeyahay xirfad markaan ku leeyahay xirfadu way badan yihiin darawalku waa xirfad nijaarku waa xirfad traditional xirfadihii aan sheegaynay xirfad macnaha waa basics qofka banjarlaha taayirka ku hagaajinaya ku farsameynaya waa xirfad ka dabkan iyo leerkan ka shaqeynaya waa xirfad cid xirfad uun leh baa qoysaskoo dhan ay ku tiirsan yihiin haddaad u fiirsato marka xirfaddu waxay udub dhexaad u tahay inaad horta independent noqotid intaana cid kale adiga kugu tiirsanaanin inaad adigu kaliga aad noqon kartid markaasi qof isku filan oo xirfad yeesha xirfadu marka waa laba aadna inaad hoosta uga xariiqataan baan rabaa xirfado waa xirfadihii soo jireenka ahaa ee aad taqaaneen oo aad garanaysaan xirfadaha soo jireenka ah ee aynu sheegayno kuwa imika aynu sheegaynaa ka mid ah qofka mechanicska ee baabuurta hagaajiya waa xirfad ka guriga kuu sameeya kuu farsameeya waa xirfad ka rinjiga iyo paintingka ka shaqeeya waa xirfad cunta karinta qofka barta waa xirfad hablaha ka u saara hablaha xilnaha iyo beautification ka shaqeeya waa xirfad qofka timaha ka jara ee raislaha ku ah waa xirfad macallinku waa xirfad decoration kan waxaan oo dhan waa tradition waa xirfad nolosha hadaynu isnaa xirfadaha tiriya too much way xirfad waa taa hore traditionalka xirfadana waa kuwa hadda cusub oo soo kordhay
oo technology-ga iyo waayaha cusub iyo internet-kan iyo maaragtay digital age-ka la soo kordhay oo aad u badan xirfadaha waxa kamid ah oo laga yaabo inaad qaarkiin maqasheen graphic design-ka waa kamid web development-ka kamid ah waxa kamid ah coding-ka waxa kamid ah kamarada waxa kamid ah qofka video editing sameynaya waxa kamid ah qofka social media management sameynaya waxa kamid ah qofka accounting systems-ka iyo xisaabaadka computerized-ka sameeya waxa kamid ah qofka architect design-adan computer-ka ku sameeya waxa kamid ah qofka data management-ka iyo waxaas ka shaqeeya yani ayagana waa thousands kumanaan xirfadood oo digital ah marka ama kuwa traditional-ka ha noqdaan ama kuwan cusub ee hadda soo kordhay digital-ka ha noqdaan talada koowaad ee aan jeclaan lahaa inaan idin siiyo maanta aad dugsi sare ka baxdeen adigu isqiime maxaad is leedahay waad ku fiican tahay maxaa hobbigaaga ah oo aad waqti badan gelin kartaa iyo aad uga shaqayn kartaa dooro xirfad mid ama laba ama saddex deeta siday tahay siday tahay maaha uun sidii maaragtay subjectska imtixaanaadka ku dhigan jirteen iskuullada physics-kina waan dhigtay Soomaaliga waan dhigtay history-ga geography-ga iyo imtixaankan ku baasay maaha xirfad marka laga hadlayo inaad u barato sida ugu fiican ee qof u baran karo dad dabka baranay sida electricity-ga inaad u baratid in every issue oo ka yimaada iyo wax kasta oo possible iyo si kasta oo loo xiro light-ka iyo korontada iyo farsamadeeda iyo sida loo cilad saaray iyo waxeeda oo dhan inaad baran kartid oo waqti geliso haddaad baranaysid computer programming ama coding ama app development ama web development wuxuu doona ha noqdo subject-aad qaadatid master gare kaad ku fiican tahay adigu baad isku day inaad heli kartid mid aad ku wanaagsan tahay waxaanad ogaataa xirfadda noocay doonta ha ahaato qof iska jiifo oo guriga ka soo baxaya oo haddana iska soconaya wax iska cunaya uunoo iska rootiin waxbaa la dhigtaa oo jaamacad baa la tagaa meeshana la tagaa iskaga jiraan sharaf maaha waxay sharaf waxay doontaa noqotay xirfad uun inaad leedahay oo intaad subaxa kacdid aad ka shaqayn kartid aad ku soo dhacsan kartid noloshaada aad meel ku dabari kartid oo halka intaad soo istaagto instead aad cid shaxaadi lahayd ay noqon lahayd markaasi inaad aad adigu dabarato marka xirfad baara kuwa aan sheegayo iyo kuwa kale waxaad isleedahay baran kartaa baro cidnaha ka sugin inay ku dabagelayso lagu oran doono xirfadii ma baratay halkee maraysa master gare qofka ugu fiican waxa sameyn kara inaad noqoto marka xirfadahaas noocay doonaan ha noqdaan markaad barato waxaad u baahan tahay laba shay intaanad bilaabin inay kaa go'an tahay inaad ona cidina kugu daba joogin cidina kugu la dul socon because mas'uuliyadii markii hore aan sheegay inaad ku saaro mas'uuliyadii iyo culayskii qofeed qoys iyo mid qaran adigu intaba og oo information ka haya ba waxaan aad baranaysaa aad rabtaa inaad baratid marka adduunka baara YouTube-ka internet-ka oo isticmaashan macnaa hindida u fiirsada bal iyo skills-ka specifically kuwan digital-ka sida u socdeen shirkadahan waaweyn aad aragtaan xataa dadka maamula ee adduunyadii haysta waa iyaga waxay ka shaqeeyaan waxa laga yaabaa inaan jaamacadna u gelin meel kale u gelin self study iyo qofku inta waxa iska go'an tahay inuu yahay meel kasta hargeysa qaarkood ayagoo waxyaalahan digital-ka ay ka shaqeynaya kugu imanaya marka intaad ka go'naansho sameysay inaad hal xirfad noqoto one thing graphic design soo mid ma inaad website sameyso wax simple ma inaad like small thing inaad sameysid laakiin aad u baratid siday tahay kaasi waa qodob marka waxa xirfadda aad baratid iyadoo kale intaad baratid un kuma anfacaysa isku day marka inaad xirfadda iyo warkeeda iyo newskeeda iyo developmentkeeda iyo waxa ku soo kordhay iyo waayaheeda inta website-yada jiraan technology waxaan ahayn lagaga shaqeyn course mid waliba waxa laga yaabaa in meel warkeeda uu yaalo intaad scrolling-ka ku jirtid ama Facebook ama Twitter ama whatever aad eegayso inaad xirfadda aad ka shaqeynaysid iyo warkeeda iyo update-keeda ka soo kordhay iyo xaaladaheeda aad la socotid oo updated noqon kartid adoo halkaaga jooga ay ku saamaxaysaa marka inaad warka heshid xirfadahaas waynaga qaabna waa traditional soma waa kuwii soo jireenka qaarna waa kuwa cusub kuwii soo jireenka ahaa meelaha lagu barto si fiican baad uga dharagsantiin ama dugsiyada xirfadaha ama lagu barto ama meelaha maaragtay lagu practice gareeyo waxaan kuu sheegayaa internet-ku wuxuu ku jira waxyaalaha meelaha ugu internet-ka jaban adduunkan ku jirnaa believe it or not adduunka meelaha ugu internet-ka jaban 0.5 waxa laga yaabaa inaad content aan caadi ahayn aad ku fiirsan kartid waxa marka
jira websites iyo akademiye online oo qaarkood free courses ku yihiin waxa aynu sheegayno afar baan marka ku sheegaya meeloodo waxaad ku fiican tahay markaad eegtay aad ka heli kartid xirfado aad u baran kartid sida ugu fiican u master gareyn kartid afarta mid waxa la yiraahdaa Udemy wad maqasheen baa laga yaabaa Udemy skills ka lagu barto 200,000 wax ku dhow waa ku jira Udemy waxa jira Coursera oo laga yaabaa isagana inaad maqasheen Coursera more than 5,000 oo xirfadood baa ku jira all of them online iyo digital adigoo halkaaga jooga mobilkaaga aad haysatid iyo computerka aad haysatid whatever adigoo gurigaaga iska joogo internetkaaga halkaa kaga jira aad master gareyn kartid waxa jira Alison isna website la dhaho application uu leeyahay Alison isagana 4,000 oo course ba ku jira 4,000 courses maaha unde IT hadda waxaan idin sheegayaa hadii finance aad ka hadlaysid iyagoo technology jira fintech ba jira hadii engineering laga hadlayo iyagoo engineering jira data entry hadii laga hadlayo research iyo statistics iyo waxa dad ka hadlaysid hadaad media ka hadlaysid like all of them waa variety waa wixii aad xiisaysaa adiga aad leedahay waad ku fiican tahay designing decoration all of them Alison waa kamid waxa kale oo isaguna aad u idin anfici doona inaad eegtaan kala yiraahdo Google Professional Certificates Grow with Google waa mashruuc weyn oo Google ku leeyahay oo dadka specifically Africa ku nool uu xiiseynaya marka inuu dad badan u tababaro waliba uu shaqaaleysiyo hadii ay waxa ay bartaan ay master gareeyaan si fiican grades fiican ay helaan ma aragtay ay projects fiican sameeyaan uu shaqaaleysiyo kuwan marka waxa laga yaabaa inaad qamar sanaaci u aragto oo wax ma aragtay la iska sheegay ay tahay Hargeysa anu intaan ogahay waxaan garanayaa intaas oo qof laakiin nin kamida oo aan la kulmay dhalinyaro ah Hargeysa joogay secondary soo ku jiro Google Professional Certificates ka dhameystay wuxuu sameeyay marka can you believe Google buu shaqayn jiray isagoo Hargeysa jooga certificates kooda soo qaatay waa 6 bilood meelaha lacagtu ma badna kaararkeenan bangiyadu ay leeyihiin baad ku iibsan kartaa online ka marka shahaado dhamaato project baa qofka loo diraa mashruuc ka shaqeeya mashruucaas uu successful noqday way ka helaan way shaqaaleysiin Hargeysa isagoo jooga $2,000 ku shaqayn jiray bishii Mareykan ka shaqayn jiray because of tech waxay saamaxday marka internetkaas aynu leenahay uu inoo fududiyo waynu haysanaa ha u adeegsanun inaad qosol iyo maad iyo ma aragtay just jokes iyo kaftan aad u isticmaashide inaad mushkiladda aynu leenahay ma aragtay wayna haysataa ama fursad la'aan baa jirta ama way yari imika inaad bilowdid because ma doonay marka jaamacadda dhameysid ee 4 sano kale aad qaadatid haddana halka maanta aad taagan tahay inaad dib u bilowdid maanta laakiin fresh baad tahay secondary baad ka soo baxday jaamacadda waa ka horeysaa 4 sano haddaad doontid ku master gareyn inaad wax dhigatid ku master gareyn inaad wuxuun sanad 2 3 aad xooga saartid hadhow banaanka aad soo baxday adigoon qof u baahnayn ama hebel oo kaxay ama meel heblaayo ma aragtay حتى حرفة أنا تكون شقينا إن لو قدر يوم ما عرفت شغالون وحنا تقرين أنا تكشقينس. مركز those courses يميلها أفر تاس وانا دكتور تانينا. حرفة مركز بريت. because عاودنا هذا حرفة كوتشرنا كوابحنا لكن conclusion كي واحد حرفة إن هذا النولش هذا السلاح هاي وتكفي عنها وتكون أكسنتها إن هذا بريت. ماستر جريس تسيت هاي أدو بريت يا. وإسكعادي أتكلم على لسان حلا هو إسكعادي. for example قف مركز وكلا دقيقة. marmarku waxa laga yaabaa qaab loo dhigaa uu qaloocanaya mid baa laga yaabaa inuu qalooco qofka sameynaya marka ku tira maxaad u qaloocisay waa iska caadi qonayso ma caadi waxa soo waa iska caadi dhaqanka la yiraahdo aanad u baranin perfect waxa sameynaysid sida ugu fiican aad u sameeysid la yarbaad xidhaysaa halka ku dhajiwaan kugu wadi laakiin siday tahay baad u dhigaysaa website baa lagu dhahay saa u samee kanba waa iska caadi no perfect inaad u baran kartid xirfadaas hal xirfad ha noqoto noloshaada waxaan ku ballan qaadayaa like inaadan ku khasaarin haddii imika ku anfici weyda laga yaabo 20 sano 30 sano kadib waxaad maanta bartay inuu ku anfici karo marka xirfad please waa idin kula talinaya inaad barataan waa qodobka labaad wax weeyaan idin anfacaya waxa laga yaabaa maanta dugsigii sare dhamaysateen intaad la macaamili jirtay waa intaad classmate-ka iyo kubadda ama wada ciyaartaan ama meelaha ku wada sheekaysataan ee xaafadaha inta isku dhow imika dad intii ka badan baad la macaamilaysaa responsibility-gaaga xeedadada dadka taqaanid network-gaaga uu ka ballaaranaya intii hore marka inaad kor u qaadid xirfadaha dad la dhaqanka
dadka qaar baa laga yaabaa inay xirfad kasta ama aqoontii aan sheegaynay ay master gareeyeen laakiin qofku waxa laga yaabaa in qofku uu sharxi karin aan wixiisa ka iibin karin ba communication skill ma laba waxaad baratay ceeb ma aha inaad tira waxaasan ku fiicanahay and this is what I can do waxaasan samayn karaa inaad barsan gareyn kartid inaad cid iska iibin kartid inaad cid la xiriiri kartid communication-kaaga inaad la dhaqmi kartid waa okay xirfadda markaa wadada la dhaqanka waxa kamid ah communication-kaaga inaad wanaajisid luqadaad ku hadlaysaa waa muhiim iyo sidaad u hadlaysaa ciyaal iskuul ma tihid anymore way naga nidhi markaa sidii qof weyn oo mas'uula inaad qof ula hadashid ereyada markaa suuqdiga iyo waxaas ma aha maaragtay wax laga filay maanta inaad ku hadashid so communication skill-kaaga inaad hagaajisid communication skill-ka waxa muhiim ah isaguna luqadaha wax la yiraahdo si gaar ah luqadu af Soomaaliga waa inaad baratid horta basically oo taqaanid afkaaga sidaad u qorsaysid sidaad ugu hadlaysid beyond that adduunku wuxuu maanta ku wada hadlo ee koorsida aan sheegayno ama halkan ka shaqeeya oo adigu halkan kaga shaqeeyo qof ajnabi ah ku yimaada ama adigu halkan jooga dad ajnabi la shaqeeya adduunka globally 70% luqadda lagu wada xiriiro waa Ingiriis iyagana waxa jira intaas oo website iyo intaas oo application oo luqadda speaking-ki iyo writing-ki iyo wixii oo dhan ka anfacaya waa very important waa gateway-ga albaabka aad ka galaysid xirfadahan iyo fahamkooda iyo dad la dhaqankaaga iyagana inaad aad u xoojisid oo isku daydid inaad self study samaysid application-nadaada iyo mobile-kaaga u samaysay schedule xilli aad inta isticmaalaysid Facebook iyo TikTok iyo Instagram inta maaragtay scrolling-kooda iyo doom scrolling aad wadid isku day waqtiga in kamid ah inaad u goysid inaad luqadana xoojisid communication skill-kaaga waxa muhiim ah iyaduna markaasi waxa soo dhan shaqada aad qabanaysid cidina kuma riixayso naftaada inaad bartid commitment inaad ka go'naato waxaan inaad keentid ay ahaato koorsada dhigata online qaar baad dhacday dib ugu celi waxbaad sixi weyday ku celi commitment hadaalin taas markaa waa professional maaragtay skill-kaagii waxaad ku kabaysaa baan idhi interpersonal dad la dhaqan skill-kaagii ah waxa kamid ah iyaduna inaad markaas dad la dhaqankaaga aad yeelatid inaad qof discipline noqotid time management-ka waqtiga sida loo maamulo aad taqaanid haddaad 7 la ballanto 7 barka intaad madaxa xoqoto inaad tiraa waa iska caadi maaha 7 baan ballanay 6:30 baan ballanay waqtiga ilaali and avoid any balwaduhu waxa ku jiraan waxyaalaha laga yaabaa in qofku sidoo doono xirfad ha yeesho aqoon ha yeesho kartaa ha yeesho any kind of balwad waxa laga yaabaa markuu qofku addicted noqdo nolosha inuu ka dhaco career-na aanu develop gareyn karin dad la dhaqankiisana hagaajin karin wax kale oo ka wanaagsan oo kalena aanu samayn karin marka iyagana inaad avoid gareyn kartaan oo iska ilaalisaan aad ugu dadaala gabagabadii waan ku soo dhawaanayaa waxaan jeclahay oo kale markaasi inaad samaysaan now waxa laga yaabaa dad badan kuma xidhnid dad badan oo waxa laga yaabaa isleediin dadka suuqan xidhan iyo ummadan wada xiimaysa iyo xafiisyadan wada shidan halkee laga gali karaa Soomaa ma qof baa ku geynay ma qof baad garanaysaa waxaas waxa jira qodobka la yiraahdo shayga la yiraahdo volunteering iyo mutadawacnimo isku day inaad ka shaqaysid hadda lacag raadin toolkii aad lacagta ku heli lahayd way skill-kan iyo networking-kan iyo dadkan aad baranaysid waxaas laakiin now xirfadaadii aqoonta tiida la dhaqanka samee volunteering mutadawacnimo xashiish baa magaalada laga guraya go there magaalada gal xaafadda meesha kugu dhow ka gur buug baa la soo bandhigaya cid kuma marti qaadin social media aad ka aragtay tag you learn wax aanad noloshaada qiyaasi karin hadhow carwa jirta lagu soo bandhigayo jaamacada soo bandhigaya waxa soo bandhigaya ganacsi baa jira wax baa jira meelahan dadku isugu yimaadaan tag adigoona cid kugu marti qaadin aad because oo open soma maxaad ka faa'iideysaa wax aanad ogeyn waxaad ka faa'iideysaa inaad fahamtid horta sida waxaan u shaqeynaya inaad dad soo baratid who is who shirkadaha jiraad baranaysaa dad carwo ganacsi tagtid waxay ka shaqeeyaan bad baranaysaa dadkan shaqeynaya si oo shaqeynayaan bad baranaysaa berri haddii lagu dhaco carwo ma ka shaqeyn kartaa because you have been there si oo shaqeysaad garan kartaa wax yani subconscious mind-kaaga iyo maskaxdaada ma aragtay hoose ku dhacaya jiro oo meelaha iyo dadka aad la dhaqmaysid aad ka helaysid waa volunteering u tag dadka waaweyn aad isleedahay waxbay kugu kordhin karaan intaad guriga iska jiif lahayd ama ma aragtay meelaha iska joog lahayd mobile iska meel dadku isugu yimaadaan tag suuqa kaale makhaayadaha meelaha dadku isugu yimaadaan iyo ma aragtay meelaha lagu sheekaysto dadka waaweyn ku sheekaystaan aad isleedahay waxumaad ka kororsan kartaa discussion-kooda information baad ka helaysaa caqligaaga iyo waayahaaga sidaad wax u arkaysid dhisay volunteering-ka markaa iyo mutadawacnimadaas waxay doontaa ku saabsan iskuulkii aad ka soo baxday tag haddaad doonto safka kala hadal ardayda ma aragtay grade 8-ka ama grade 9-ka ah oo tago wax u sheeg volunteering waxay ku baraysaa
iminka barnaamijkan aad timaadeen soo ma waxa laga yaabaa dhowrkii kun ee arday ka baxay dugsiga sare maanta inta aynu sheegnay hal ereyna ha noqotay inaad wax kaga duwantay soo ma because of waxaad timid munaasabad cidina lacag kuma weydiin cidina lacag kuma siinaysa laakiin hadda you learn something hal ereyna ha noqdeen markan volunteering ku meelo badan buu galaa kuwa arrimaha bulshada kuwa get togetheriska meelaha soo dhan isku day inaad tagtid waxaad u baahan tahay marka waayo waxaas waxay ku siinayaan capacity iyo faham iyo dad la dhaqan iyo who is who iyo maaragtay inaad marka dad aad isku barataan bilaash ku shaqee dad qof xafiis la garanayso qof meherad leh qof xirfad ka shaqeeya waxa ka shaqeeya iska raax qof aad garanaysid xataa skill aad garanaysid meel haddaad access u heli kartid jaarka ehelka asxaabta qaarkood dadka qaar I have seen ani dadka qaar intay soo galaan xafiisyadaan iyo waxaan doonayaa shaqada bartay balibara like that oo then qaarkood xafiisyadii ay ku gaareen meelo sare qof caawi don't look for money lacag iyo marka inaad ka shaqeysid because capacity-gaagii iyo waxaad dhisaysaa xirfadaadii hadhow waxaad imanaysaa iyadoo maxay lagu baahan yahay lagu barayo that's one thing internetka uga faa'iideyso inaad xirfadahaaga iyo networking-kaaga iyo aqoontaada ballaariso everything waa adduun way internetku soo ma haddaad in entertainment kaga jirto noloshaada dhan entertainment bay noqonaysaa tiktok-ga China waxaa la dhahaa tiktok-gu inaga meelaha waxa qofka tiktok isticmaala ama daawada waxa la dhahaa waa Soomaa waa qof wax positive ma wax wanaagsan Soomaa ama wax fiican ba aad loogama helo Soomaa content-ka Soomaalida ku jira adduunka qaar imanka China oo kale in kasto tiktok samaystay waxa laga yaabaa perception-ka ka haystaan inuu yahay qofka tiktok isticmaala dad scientist iyo technology based iyo dadka developerska ay waxaasi ay ku share gareeyaan way ku jiraan laakiin waxa laga yaabaa adiga waxaan aad u daadaawatay algorithm-ka inuu ku soo saaray isku day markaad YouTube-ka galaysid YouTube-ka iska xir kuma leeyahay YouTube-ka isticmaal laakiin uu isticmaal these courses aan sheegayno YouTube-ka waxa doontid ku qor xataa sidee biyaha loo cabaa ku jirta biyaha sidee loo cabaa everyone knows Soomaa hadda ku qortay sidee biyaha loo cabaa you have seen millions baa daawaday hadda doonaan waliba marka hays oran in digitalka waxa loo isticmaalaa ma aragtay dadkan ama qabyaalada iyo reer ku caayaya ama waxan soo galaya these fees ku raadinaya no a million ways kale even social media iyo internetka isticmaalisa uga faa'iideysan kartaa ayaa isticmaali kartaa qodobka aan kugu soo kordhinayo ee u dambeeya wax weeyaan wax akhrisku waa muhiim waa very important because information-ka aad haysid soo ninkii caalimka lagama hayn markaan wax akhri markaan wax ogaado hal wax markaan ogaado waxaan xaqiiqsadaa intaan jaahil ahaa by the time aad wax ogaatid inaad wax badan jaahil ka ahayd baad ogaanaysaa marka wax akhri wuxuu doona ha noqdo haddaad af carabiga akhri taqaano buugta carabiga akhri haddaad Soomaaliga taqaanid akhri Ingiriisiga akhri hadduu kugu adag yahay isku day maalin ba inaad 1 page akhri kartid 2 page 3 page wax akhri article akhri buugta sheekooyinka akhri kuwa science-ka kuwa cilmi baarista kuwa taariikhda whatever wax akhrisku adduun aan ku furnayn oo dan ogeyn buu ku baraya aad baan kugu talinayaa inaad wax akhriskaaga aad kordhisid haddii akhrisku kugu adkaado ayada lafteeda dokumentariyada daawashadooda badi taariikhda science-ka hal abuurka aqoonta jeceshahay history-ga waxaas oo intaas oo documentary baa jira Netflix inaad film ka daawatid entertainment iyo qosol intaas oo documentary baa ku jiro daawan karto adiga kugu xidhan tahay waxaad rabtid marka kuwana inaad xoog saartid ugu dambeyn waxaan jecelahay hadalka waan badiyay wax badan oo kale oo sheegi laana way jiraan laakiin waqtiguna waa cidhiidhi inaan ku soo gabagabeeyo cases laga yaabo inay ka caawin karaan ma aragtay inaad fahamtid inaadan ma aragtay qof iska caadi ahayn ama aanad wax weyn samayn karin Facebook aad isticmaashaan qof jaamacad sanadka labaad ah sameeyay soo ma ogdi class-ka wuxuu ahaa labaad jaamacadda 2 years kadib way platform-ka aad aragtay qofka sameeyay uu ka shaqeynay Kenyadan laba arday baa waxay sameeyeen platform la dhaho Salutant marka jaamacadda ka qalin jabinayeen baa thesis-ka ay ku qalin jabinayeen baa wuxuu noqday imika waa payment ma aragtay system dalal badan oo Afrika ugu badan baa malaynayaa Afrika laga isticmaalo waa graduation waxa weeyaan project-kooda jaamacadda ay ka qalin jabinayeen Kenya waa next door marka adigu haddaad waxaad dhiganaysid isaga dhiganaysid isdhaafi ana isdhaafidaas kaaga dhamaan kartaa marka isdhaafisana magaalada soo eegi doontaan haddii waxa aad gacanta ku haysid aad leedahay kullayba waqti baa iga galaya oo la igama dhaafayo oo time baa iga galaya waxaan doonayaa inaan the best qofka ugu fiican noqdo you can make result out of it waxaad ka soo saari kartaa wax markaasi successful